بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد قرب كيغا فرديا ولكن محمد سعيد عبدي سيكستيها طبعا محمد ما أنت برنامج كانوا ودنا معها برنامج فناد لكن هو برنامج آدو قيمة بدن واحد كسر دوينيا برنامج ولكن محمد سعيد عبدي كسر دوينيا أدبا ما حسنتهاي هلا أبو رعول بلي أدبا نقول هي أدقي أصحاب هذا قالقا كفرد نقدو بس أدقي بقى وما حسنتي ما كله ما شاء الله محمد واحد شرتي أربعة بلان عقادي أو تري عباهيسي إن هذا ما سوق بجمين دونتو سيدا أنا كنت جد ضفنك كل ذلك حسوي الدنيا محاكو كلفين محمد عبدين فنك كبحة هرت أدبا ما حسنتهاي شو أشياء ومهم إن شو أشياء وحيقول كلفي وحيقول بشكريه مع وحداد السجيمي معها فامليجا وواحد الله aan goostay inaan iska daayo oo ku faraxsan mid kale waxay ugu dhacday qisadan mar hore inaan joojiyaan doonayay 15kii marka mar walba xasaasarku ka go sanad hadhowdeed dib ugu laaban ma sha Allah marka dar ilaahay bay iiga timi ma sha Allah taasoo doonayay dad ka baxay ku soo noqday baa jira sax ma sha Allah fanka dadka waxa jira ku jira iyo dad aan ku jirno tuunsan oo gartay oo ku tuhmaya dunin laga helo kale hay fanka maxaa hanti ah oo laga dhaxlaa fanka waxa laga dhaxlaa magac ma sha Allah lacagtiisuna waa taburcad badeed oo kale oo iyada koonaysa isoo saar oo ibixi wax meel wax laga dhigto ma jirto fanka magac un baa laga dhaxlaa insha Allah waxa jirta kulli marka fanka baxaysay aad gaba tashatay dadkii isku mihnada hay'ad u bandhigtay la wadaagtay sidee bay arkeen bay kula tahay horta markii ugu horeysay way ogeed xaaska waan u sheegay mar labaadka hooyo aad u jeclayd inaan ka baxo fanka anab salaam deeriye aan aad u jeclahay iyo shoodhayaasha way jeclaayeen deedna mar aad ay weerarayay baytiri hooy ilaahay waxa dhaamaha kugu bedelo aamin baan idhaanugna insha Allah tii hooy ilaahay ku aqbalay ma sha Allah waxa jira oo kale ku weydiinaya fanka waad ka baxday waad sheegtay saad shaacisay maxaa ku qorshaysan inaad booskii fanka ku bedesho horta fanka dar ilaahay baan uga baxay ma sha Allah de waxana ima qorshaysan markaad hor ilaahay u baxdo de ilaahay markaad hor ilaahay si taagto de ilaahay wuu ku siinayaa ma sha Allah marka in aan wax fiican dhalinyarada wacyigelin u sameeyno oo aan isla kaashano dad badan ayaan ku rajaweynayaa iyo ganacsi inaan iska galo oo wada kale ba banaan صح ما شاء الله dadka qaar waxay isweydiinayeen in dhowr cisho bay sir weydiinayeen maxamed arbacadu ayuu sameynaya way arintaas in yara jiitanto dhowr cisho la yara sugo sabab halabuurood naadsantahay su'aalaha caawa way fiican ma sha Allah waxa sababay wad xaamxaamanaysaa oo khasabde anigu mar hore iga soo go'day laakiin dadka jawigooda iyo taageerayaasha iyo xulbaan eegaya marka taageerayaasha meel kasta joogan Soomaali umada Soomaaliyeed si sharaf ku noolad meel kasta joogtaan fankayga jeclaa waxaan leeyahay isoo raacada heegaarne xaqan isoo raaca khayr kalena insha Allah hay hagaag hadalkaaga ugu dambeeyay weeye dadkii aad isku miinada hay'ad fanaaniinta ahaa isku miinada hay'ad marfanka wada bilowdeen iyo taageerayaashaadaba hadalka ugu dambeeyay ku soo gudbinaysa leedahay waad si faraysaa ma sha Allah horta waxaan oranayaa laburow caafimaadku waa raacis sharaf meel kasta joogtaan umada Soomaaliyeed dadkii aan isku shaqada ahayn fanaaniintu waa dad qalbi fiican waa dad ilaahay bas iyo halabuur leh laakiin xaga khayrka oo soo bata hibidina khayr ku bedel baan oran lahaa taageerayaashaydii waxaan oranayaa isoo raaca hayga harinay wadadana runtii tan isoo raacan wallahi ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay umada muslimka meel kasta joogtana waxaan leeyahay asiya sharaf ku noolaada ma sha Allah ما شاء الله aad baa maasantay walaalkay maxamed Saciid Cabdi si kastay haataba barnaamijka dadka soo gabagabeynayna barnaamij aad u qiimo badan ma aha barnaamij faneed ama barnaamij suugaaneed waa barnaamij runtii maxamed BK ku shaacinayay inuu joojiyay dhamaanba wixii fanka loo oranayay alabur ada ku haystay dadku waxay lahayn mala BK dab kama waa baraak ma waa dab weey insha Allah aad intaas kelmadaasna waa kaftan
dadkii hore uga baxay fankana aad baan ugu hambalyeynaya gidigina waan wada salaamaya iyadoon cidina ay joojoomin niyadeydana waxna ka yimaatay ما شاء الله aad baa mahadsantihiin asi sharaf u noqon